بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرين ما أنت هالكلام واحد صحافة شكلي يعني واحد لسه عتينه ما اسمه عتينه ولبض قاله وتشيدي قد بالسنوات في دستوري جهيد هاي من عتينه سنة كيف هالمرة قالياش كرنك ومركز هذا وهم خطبتي الدستوري جهيد واجب جهيد بالجهيد مركز وحنو أنا لبض حسبي أنا ما أتكلم لأني هذا يقول بدوني أن تشيرين كهلا مدحوينه لينا أنا قلنا أنا وحي رأي أنا بكتير كذا حسبيها أحسابها يعني كتشيرينه مركز جوهري مدحوينه حصار وحلا سعتين يعني أحساب تقرأكم دوح الليه مقارنة سحر بليه مدحلين نويليه لبدي كوني لبيت تمكي أيه مركي صدق حسب قرن أي صواب حين مكان خير كود فقاح مدحلات كقولياش مركا أنت تمكي سنة مر لفره مركا ما هو فهم الحلو قاعتين مركا هراء ونصور دوينينا وعن فيه كما قبنا لكن وقت جيدة waxaana intaas oo dhan ka horeysa soorkii iyo cidii qaban wuxuu ahaayay doorashada oo dad komishiku ugu horeeyo demurukiisu xisbiyada mucaaradka xubnahoodana way ka maqan yihiin komishi lagu wada kalsoon yahay isagoon leenahay horta in doorasho iyo uur la furo مدحلاتك هدي wax laga bedelayo oo hadda ku eeg madaxleedka xisaabta qaranku ku eegtahay 2022 loo soo dhigayo waxaan soo jeedinaa in iyadana wax laga bedel lagu sameeyo golayaasha qaranka ama guurtii ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxweynaha laftiisa ha ahaato in iyagana wax laga bedel laga sameeyo haddii xisbiyada 2 sano laga jarayo inta madaxtooyada 2 sano laga jaro oo doorashooyinkan dibtooda ay ragaadisay mar walba qaranka ee dhiig bax ku tahay inta ilaa madaxweynaha sanadkan aakhirkiisa si muran ka badan iyo soo noqoshada taa intaasan ka oran lahayd madaxweynuhu saak waxaan ka fiirinay inuu la yimaado xuluul iyo ummadan ka bixi lahayd caqabada doorashada keeno arintii saami qaybsi oo iyaduna caqabad ah doorasho hortaagan oo iyaduna doorashooyinka waxaan fiirinaa iyadoo kale inuu xalkeeda la yimaado magaalada saayay in doorashooyinku qabsoomaan sanadkan aadkeeda dunida badankeeda bada u ballan qaaday intii runtii deemay ka muuqan waxaan arkaynaa arintan imika ugu furaynaa inay tahay uun dariiq kale oo aan loo jeedin oo ila meerayso cusub madaxweyne u furay marka taa isaas garoonkii lagu ciyaarayay oo saaxadii lagu ciyaarayay oo nadiif ah iyadana markaa loo dhex yahay oo markaa iyadana lagu wada kalsoon yahay furista ururadu waxay qaataa process guddiga ورال ترتمى wax arkayna oo runtii de magaranaysa dariiqaasi inuu dariiq kale inay tahay marka runtii aanu intaasan ku darayo hogaamiye xisna isna kamidis oo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ودينا الصلاة والسلام على صلى الله على سيدنا نبينا محمد
dhammaantiin intiina halka joogta saxaafadda inta kala socota waxaan leeyahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib waxaa maanta labada xisbi u ballameen inay ka hadlaan khudbadii madaxweynaha. waxaa iga horreeyey naasir oo tilmaamay qodobadii ku jiray qaar ka mid ah. sidaa uu sheegayna haddii ururada la furayo waanu soo dhawaynaynaa. waxaase ka horreysa oo loo baahan yahay ururadana in la furo, waqtigoodana la furo. haddii laga soo horreysiinayna oo dadka ma qabnay sidaa uu sheegay dee doorashooyinka oo dhan hala soo wada qadimo mushkilad maaha. waana ku fiican tahay in lagu daro xeerarka in doorasho waqtigeedii laga soo horreysiyay la qaban karo oo wax badan baa laga yaabaa inay fududayso. waxaynu uga gudbaynaa taa haddii alla ka dhigo oo aanan waxba caqdad ka qabin. waa in dimuqraadiyadda oo dhan la koriyaayo. dimuqraadiyaddu maaha doorashadoo keliyahe waxay u baahan tahay dimuqraadiyadda in la koriyo oo runtii in dhaweydba laan garaynayo horumarkii aynu filaynay aanu ka muuqan. waxaan uga gudbayaa khudbadda madaxweynaha waxay xambaarsanaataa warbixin uu u jeediyo labada iyo bulshadaba iyo sidoo kale qorshihiisa qorshe sanadeedka. khudbadda madaxweynaha madaxweynuhu maanu qorshe lahayn miya qorshihiisa wax u qorshaysan mustaqbalka uu qaban doono sida uu dalka u hogaamin doono u hagi doono mushkiladaha yaalay caqabadaha sidii looga gudbi lahaa midkoodna madaxweynuhu kuma xusi khudbadiisu waa tan hor taalo afarta qodob oo kaliya ka hadlaysa. afarta qodob ee ka hadlaysa waxa weeye dhaqaalaha, adeega bulshada, nabadgelyada iyo arrimaha dibadda oo kaliya oo warbixin ah oo warbixin aad moodo inay warbixin yihiin kuwii u dhigmaa ee doorashada lagu geli jiray campaign-ka. laakiin dhibaatadii Somaliland taalay aan hoos loogu daadegin. waxaan leenahay madaxweynaha waxa looga fadhiyay caqabadaha jira, qaybsanaanta bulshada oo sidii loo midayn lahaaya waxaasoo dhan lagaga hadlo. waxba ka sii weyn farmaajo ayaa la isweydiinayaa Hargeysa imanaya ilaa shalayta aan maqlaysa media iyo bulshada. farmaajo Hargeysa muqdisho inuu ku ogeyno muqdishona wada hadal baa inoo socdo. wada hadalkii labada madaxweyne waa joojiyeenoo waxa ku xigtay labadooda kulmay Hargeysa imanaya. maanta inaynu isweydiino farmaajo Hargeysa imanayaaba ayaaba qalada inaynu isweydiino. sifada uu ku imanaya waa sifadee? sifadu ku imanaya waa sifadee? de kulankii madaxweynaha ka dhalatayoo hore uma inaan maqli jirin. kulankii madaxweynaha ayay ka dhalatay. madaxweyne hadduu jiro dadka inaad wixii meesha ku sheegin ilaa in taasu soo baxdaaba meesha ma ahayn. dee waxay muuqatay inaad wixii noo wada sheegin soo jara baxo wixii aad ku wada hadasheen noo sheeg. waxay ahayd runtii xisbiyada qaranka inuu loo yeedho taladooda la weydiiyo la yiraahdo wada hadalkiiba ama furmaya ama arrin baa soo kordhay oo culayskaasaa soo kordhay maxaynu yeelaa. ilaa haddana kama hayno xisbiyada haddaan nahay mucaaradka labada xisbi waa nagan joogno wax waraan aan ahayn intaa uu halkaa ka sii daayay kama hayno wax talaana kama hayno. waxaana ka muuqatay uun warwar ah farmaajo imanaya iyo halkaan inoo imanayba halkaana goor inoo gaadhay arag garmay halkaa inoo joogo farmaajo imanaya iyo dad ka hadlaya oo warno farmaajo talada weyn madaxweynaheena inuu dhiibanay muuse waxaan leeyahay taladaynu isku maxaaba moodaha lagaama filayna maxaa moodaha geliyay. taa intaasan kaga tegaya. talabaadna khudbadan ku noqon qorshihii madaxweynaha ee uga qorshaysnaan lahaa midlan doorashada marka laga hadlayo. doorashada caqabado badan baa hortaagnaa oo ay ka mid tahay komishinka la isku hayo sidii uu saaxiibkay ka dhawaa doorashada loo geli lahaa ama mid marka ururada la gelayaba doorashaa la gelaya ha noqoto mid xisbiya lagu gelaya ha noqoto. saami qaybsiga mushkiladiisii madaxweynuhu kama hadal. kootadii madaxweynuhu kama hadal. komishinkii maalintii u dambeysay khudbadiisu ay ahayd ku ogeyno madaxweynuhu ka dhawaajiyay. haddaba hadalkii madaxweynaha qaban karaya komishinkii hore inoo qaban karaya ayaa madaxweynuhu ka dhawaajiyay. waana markii lagu heshiiyey ay guddigii dhexdhexaad ahaa inagu dhexdhexaadiyeen tiina madaxweynuhu maanta ba soo qaaday. marka waxaan leenahay waxaan ku taaganahay heshiiskii xisbiyadu
ay waxa weeye guddigii soo saartay aqbaleen madaxweynuhu aqbalay waxaanu leenahay doorashadii inuu qabo way fiicantay December inuu qabo doorasho dhan inuu qabto si ahdaas ka dhawaajin doorasho dhan inuu qabso ururada inuu furo waa khayr iyo baraka mushkilad ma aha laakiin si wixii shaqo ku inoo taalay oo dhan baa meesha yaalay madaxweyne wixii shaqo inoo taalay kama dawaajin waxa inta raaca waliba qorshahaagii qaranka ee aad ku hagi lahayd ku hogaamin lahayd ee annaguna aanu ka hadli lahayn ama toosin lahayn ama taageeri lahayn ee bulshaduna ama qaadan lahayd ama ku qanci lahayd ma soo bandhigin qorshaha lagaga fadhiyo maatinta salaam alaykum.